kooxda faca weyn ee kubadda cagta ee Elman FC Elman oo runtii diyaar garow ku jirto bisha Ramadaan hataa sameynayso tababar ciyaartooy aad u da'yar farsamadooda aad iyo aad u sareyso ayaa waxaa hogaaminaya kooxdaasiti macalinka da'da yar Mahad Maxamed Xaaji oo ay caawiye u kala yihiin Cumar Cismaan iyo Xaaji Yuusuf Xaajow oo runtii ayagana ahaa ciyaartooy soo martay naadiga faca weyn ee Elman ilaa haddana muddo ka dhex shaqaynayo kalabka naadiga Elman. runtii maclumaad Xaaji Maxamed ayaa wuxuu ka mid yahay macallimiinta da'da yar ee dalkeena Soomaaliya u soo baxay maasha Allah. maclumaad wuxuu ka mid ahaa ciyaartooyda dalkeena Soomaaliya xulkeena qaranka kooxii Heegan kooxii madbacadda soo maray oo runtii haddana macallin u soo noqday saxafi Heegan haddana uu yahay macalinka kooxda Elman. waxaa xoogaa yar hadallo ka kooban iyo tababarka ku saabsan noogu sheekeynayaan caawiyayaasha kale ah macallin Cumar iyo macallin Xaajiyow oo runtii ah macallimiin dhalinyaro ah wax badan ciyaartooy soo ahaa haddana wax badan macallimiin ah runtii legends ah macallin Cumar Cismaan Maaleya aan dhageysano warbixinta yar uu na siinayo oo kaga hadlayo kooxda tababarada ay soo sameysay iyo heerka diyaar garowga iyo sanadkan wax ay filan karto. كدوه معنا صالح لجن ورب ما شاء الله ويوتيوب كا وسودويننا فيسبوك ما شاء الله ويلكم علينا سودوه كلنا ان شاء الله كل معنا شقدي سوق من ربنا انا قلبت عن فينا تجابنا قابك ودحدي قابك هدي دب نقشay tahay yadi sax ay tahay labadaas aan fiilina dawlad kale noqdo waxaan aan rajeenina inaan kubad fiican soo bandhigno ما شاء الله. معلم عمر waxaan u jeedaa ciyaartooy aad u da'yar oo ma sha Allah farsamo fiican loo aad fiican ciyaartooydan misleedihiin sanadkan ama riyaalada ama tartamada kale ka gelisaan mustaqbal fiican ay leeyihiin wax qaban doona misleedihiin wallahi runtii ma sha Allah horta ciyaartooy fiican joogta ma sha Allah oo yaryar ah oo mustaqbal leh oo fid ah dhan kasta ka fiican ma sha Allah sanadkan waxaan isleeyahay riyaalka meel fiican aan ka tagayna dawlad kale noqdo ما شاء الله معلم aad u maasantahay thank you so much. سودو جناب معلم صالح ما شاء الله حاج يوسف وكدوه معلم ما شاء الله وما سنتهاي حبكي بقل هذا وما سنتهاي بالرمضان هذا الجراع يالك حبك قرن كان 17 كمان عيال بين ما جبين لنا انا جو علم ايه جيم كاسا وإيمانه ان شاء الله حارجينا سبورتيك الصومالي انه هرمر قار ان شاء الله. اوكي كلهم كان قلطة لعياريسين مدام بالرمضان اتي صار شيكتي بحي كوحدة كي دقنتهاي والله كوحدة waxay kala dhigan tahay waxaan soo intaan soo maalmaan sameeynay kulan koor aan u dhiirigno oo baaqday kulankaana hadda maanta oo ilaahay inaan deeno ما شاء الله عيالك قرنك oo ku faraxsanaan sababtii inaan la dheelno waxa waa iyagana waxay matalayaan anagi dalka Soomaaliya dhan matalayaan waxaan rajeenaa in ciyaar qurux badan ay dheelaan labada team qaranka iyo xalkiina insha Allah waa ciyaartooyda waa ciyaartooy almintiinayeen muddo alminti wadeen inkastoo bil Ramadaan lagu jiro bal malana sanin toban bir kadib oo ku soo laabanay training maalmahan training aad u adag sameeyay waxa waay marka geed awuurtay miraha ku soo baxo ina ogaataan miraha ina maanta waxa u joognaa in juudigii iyo wixii aan soo gelin in maanta ay kamar dhaliyaan ina aragno ina aan ku saxno sababtoo waxaan u dagaalamayna anaga ma ahan ciyaartan friendly match ma ahan
حربنا إن هريالك وبلاونا دب بلاونا هريالك ربنا إن أن نتيجة عن كتيرنا أما أن كل سنة أما أن كانت عن كتيرنا رجينا إن شاء الله عيالك ما أنتم عارفين الاستوديو بيخاف كودا وحن كلنا شغل أسوق من مرة السلوك إن شاء الله ما شاء الله هذا ما صنعتها هذا ما صنعتها